حتى سيرة وحكوتها على في السنن قال هذا مركي الله سوق بتنقارك والنبي يقول ونجري المسجد كل حرة ثمامة بن عثال كبدا في صحيح البخاري رحمه الله سري النبي قدري مرقا سنين قا سوق بتان مرقا سنين النبي الله كاني ما قرنا سنين ما قرنا إنه وثمامة بن عثال وملك اليمامة هل قا يقول حرة بن المسجد كل حرة يقول حرة ساجد كواجل markaas halkii baa lagu dhaxidhay markaa nabigu reerihiisii uu tagay cunto uga soo qaaday hashii irmaanida nabiga noo maalay caanaheegina uga soo qaaday markaas nabigu halkii ugu keenay uu hawaa oo nin xidhxidhan markuu cuntadii siiyay oo caanaheena ka bisiyay buu ku yiri ya Thamaama iska soo islaam markaas uu ma islaamay buu in taqtul daadamin wa in تنعم على شاكر وإن تريد المال فسل ما شئت بكير يا محمد هذا أنا جاي دشيت بكير نن دي جيس دول كون دعيا ميه بودي طلبة يقدم بيجودي هذا الرجال ده ستنا ما أنتم حريقة يجسي ده سنة نن أبل عليان هاي بودانو وأنا أبل جودي هذا المال يديه دون السنة شيء واحد دون توافقسينه لكن حريقة يجسي ده مرقاب النبي عليه الصلاة والسلام وحكيري مي كم سيدين النبي كيري هذا كيف هالك كبرية عشان يبون النبي هذا لو كان حش النبي عنها وكم عليه يسقى لو كم عليه أي النبي عليه الصلاة والسلام يسقى أيه كان عنه مرقاس وكعلي هذا نقول إسكال الإسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي نين قال أو مشركة عنه سينتو كان سينايا حراتكو كو عسينين انتو سو غالب هردغيا مرقاس وليبا او خدمينيا او اديغيا او ليهي سو اسلام محو نبي ونك الله ما غنيهي انو النار كبدبادو نصب كدوني مايو لعق كدوني مايو شهرت كدوني مايو waxa kaliya uu ninka nabigu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaamo markaas uu ku celiyo hadan ya Muhammad haddaad idishid dhiigaygu dhulka u dhicmaayo waa laga dambeeyaa buudi haddaad galladaysatina maanta oo sii deysid oo xariga iga sii deysidna nin abaal celiyaan ahay buudi anigu ma ciyaar nin kaftamaya ma yihi buudi abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoola waxa doonaysa i weydiiso madax furasho waa ku siinay xariga iga sii daa markaa nabigu kaleey salaatu wasalaam ku yiri may markaas de waa hagaag anigu ma islaamay buudi هذا ما لين دي سدحات سيدي يسلك بنبي نكي ugu khidmeeyay xaraadkii buu keenay aanihii buu keenay markaas uu yaa Thamaama iska soo islaam sidii uu isaguna ku jawaabay markaa buu nabigu saxaabadiisa ku yiri dilkiisu waxba inoo tari maayo xadiga ka sii daayay iska socday buu yiri sii daayay markii la sii daayay magaaladii Madiina ka baxay baarihi baar kamida buu galay عال أي لهاي بوبيه كسر دانسدي وكسر قبيستي وصوم ميدي مساجد النبي جينا وكسر نقضي سبع آله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصل يا رسول كنا صلى الله عليه وسلم برجع يا رسول الله دين تادن ديمها ونعبا لكن ما أنت لقى بلا دين تادن ديمها وجعل هاي دل كاغان أدوية ونعبا مقالة مدينة يا مقالوك وجعل هاي وجهاغان وجيده ugu nacba maanta laga bilaabana dadka Ilaahay abuurada kugu jecelahay buu ka yiri habadle ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu ku dhaxidnaa masaajidku waa meesha raxmadda Ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'iktu ay imanayso waa meesha muslimiintu Ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo daba dhaafo weeyaan waa meesha nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu doortay inuu ummadiisa ku tarbiyadeeyo هذه الدين لبرينا عهد نبينا مساجد كان نبينا كبر جري هذه دم الإسلامين يا مسجد قال له إسلامين يي هذه جماعة الله بري مسجد بنبي كبر يي هذه وفود نبي قابل يي مسجد بكو قابل يي لا أنا مساجد كوا أقل كلاهي ما العتك الله نسبين معها فدقات فريستي بعد كيف يديسن كذا وعد جنبه وعد جواد الله الشيخ يا حتى هذا بحبك فهمي ويدو فدقا مسجد كعاد فدقا إلى هاي كوكون حريصا
laakiin dadkeena maxaa fadhigi masjidka ku adkeeyay maanta masaajidii waa mahjuura waa laga hijrooday halkay camiran maqaaxiyaha camiran maanta majaalistii qaadka camiran meheradihii adduunyada ayaa camiran 24 saaca adduunyada meelaheedu waa macmuur laakiin masaajidii raxmadu ku soo degaysana waa mahjuur maanta ahabbu albiladi ila allahi almasajid dhulka ilaahay meeluhu ugu jeclaa waa masaajida meelihii ilaahay ugu jeclaaba naftu ka ordaysaa maanta oo nafteenu ay ka didaysaa meelihii ilaahay arlada ugu necbaana nafteeni maanta way ku xasilaysaa maxaa bedelay ninkaas saddexda maalmood masaajidka nabigeena calayhi salaatu wassalaam khayrkii uu ka maqlaayay khayrkii uu ka arkaayay acmaashii masjidka nabigeena saxaabadu ay ka qabanayeen ayaa noloshiisa ilaahay ninka ku bedelay markaa buu yaa rasuul allah cimraan u socday maan u sii socdaa mise waan iska noqdaa markaa buu nebigu yidhi maya orodoo cimrayso laakiin wuxuu nebigu markaa uu sheegay arkaantii cumradu uu sheegay ilaa cimrada iyo xajku waa soo jireen zaman jahiligi carabtu xataa way xajin jireen wayna cimraysan jireen markaa buu nebigu u sheegay arkaantii cumrada sidaa iyo sidaa iyo sidaa markaasuu maka soo galay waxaa la yidhi waa saxaabiga ugu horreysay magaalada maka soo gala isagoo mulabiya isagoo le labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulku laa shariika laka waa saxaabigii ugu horreysay ee talbiyadda islaamka la yimiday tawxiidka la yimiday ee magaalada maka soo galay buu Thamaama radia allahu canhu quraysh ayaa markiiba ku soo ururtay waxay ku yidhaahdeen waxaana soo gaadhay Thamaama inaad diinteenii aad ka baxdeen maxaa ka jira markaasuu yidhi marka horeba diin maan haysane diintii nebi maxamed uu la yimiday baan raacay buu anugu salaamada dakhaltu diina muxamed buu ka yidhi diintii nebi maxamed uu la yimiday ee islaamka ilaahay loogu soo dhiibay ayaan anigu maanta laga bilaabo aan ka mid ahay ehelkayga buu yidhi taad sheeganaysaana horaan uga baxayba markuu cimraystay oo lagu dhici waayey limaada laana ninkani waa boqor xintada laga cuno xinta shaciirka laga cuno dalkiisu ka baxa quraysh way taqaanaa markaas waxay sidaaday ninka haynagu taabanina haddaad nagu taabataan dhaqaaluhu naga jari mar alle markuu cimradii dhammaystay isaga u yimid oo ku yidhi qurayshay dhegaysta maanta laga bilaabaa xinta xabban xinto shaciira dalkayga inaga imani mayso ilaa nebi maxamed oo amar isiiyo u sii daa igu yidhahda mooyaane ima ininkuu diinta islaamka soo gala mooyaane labada waxba kama dhexeeyaan buu yidhi waa ninkii ugu horreeyey baa la yidhi islaamnimada daraaddeed quraysh u saaray xisaar cunaqabatayn imika cunaqabataynta ayaa la saaraa ayaa saartaa islaamkaa la saaraa maxaa lagu saarayaa laana adduunyadii baad jeclaatay adduunyadii baad weynaysay waxay gaaladu caabudayeen baad adiguna la caabuday marka way kaa adag yihiin ogow khadkoogii baad gashay markaasaa markii uu dalkiisii ku noqdayba qoomkiisi way wada islaameen markaasuu yidhi magaaladii maka shaciir ha u dirina buu yidhi xinto ha u dirina buu ka yidhi ka joojiya mar allihii markii ay maqleen reer maka ninkii uu ka joojiyey raashinkii badeecadii baad ascaarteedii baa kacday markaasay quraysh nebiga warqad u soo qortay ku dhawarayaan ay leeyihiin yaa muxamed diintaadii ma waxay ku faraysaa inaad riximkaaga aada goysid ood gaajo ku dishid markaa buu nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi Thamaama binu Athal buu nebigu warqadda qoro wuxuu ku yidhi tolka ilaahay baa soo hadayn doonee inooga sii daa buu ka yidhi raashinka u sii daa masaajidku saas wax u bedelaa uma tarabad fi lmasjid nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ragga taariikhdooda maanta caalamkao dhan laga wareeray ee la leeyahay hadday raggaasi adduunyada mar labaad iman lahaayeen mashkiladda caalamka taa laga kaaxlin lahaa bay yidhahdeen gaaladii lalahaa waa indheergarato waa khubara lagu sheegayey warkoodu wuxuu ku soo ururay inay yidhaahdaan cumar binu khadaab ninka la yidhaha hadduu caalamka maanta iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isaga unba xallin kari lahaa
markay akhristeen siiradii cumar xagee ka soo baxeen raggaasi ayna taqarrajuu wallahi cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina madaaris qur-aanka laga bartana may lahayn macaahidna may lahayn jaamacadana may lahayn meesha ay ummadda wax ka baratay masaajid buu ahaa masaajid